أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحنسي آخرنا آيات كلا أركي هبينكو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رشي صوهو بشدة أسنامتا البيهقي وحو دلائل النبوة كوري يغير كيسبة إني هبينكو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رشي أسنامتا العابد جري أي ميشي سارنايين كسو هوبتين oo ay waji dhulka ugu soo wada daateen ayadoo ay jirin wax loo jeedo oo riday ama riixay dhul gariir guud Muhammad Rida wuxuu kitaabkiisa Muhammadur Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ku wariyay inuu al-Yaqubi kitaabkiisa taariikhda ku yiri dadka waxa habeenkaas haleelay dhul gariir saameeyay adduunko idil اليعقوبي سدو أقرأ الزركلي كتاب كيس الأعلام وأحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي أبو أيوب بنتين سنة كهجري إلى بقول يلا يسجاشنك وندق أنت سجال بقول يشن ميلادك وحها عالن دالمرين أو تاريخ ذا جغرافيك كحل در كان مد أها دتك رير بغداد أرلق العراق وحو سفري مغرب يا أرمينيا أو مدجوغي هنديا يدرالك عربتا أوهيس أيا كمد أها مواليد المنصور العباسي وحو ديك كتب بدن أو كمد يهي كتاب كيس عانك تاريخ اليعقوبي xoojinta ilaalinta samada habeenkaas nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhashay waxa samada lagu xoojiyay oo lagu kordhiyay ilaalinteeda dambaaburo dab ah oo lagu gano shayaadiinta u soo dhawaata ayadoo doonaysa inay halkaas warka samada wax ka dhageystaan gurida badyarta saawa habeenkaas nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhashay waxa gurtay oo biyihii ku jiray gureen badiyarada saawa ee ku tiilay dalka Faris waa Iiraan saawa waxay ka tirsanayd miyiga arliga Faris baddaas waxay ahayd bad weyn oo ku tiilay meel u dhaxaysa labada degmo ee Hamdaan iyo Qum كتابك الخميس وحيري وتاريخ الخميس درر كذا يبلر كذا با وكبدنا لح فرسخ وحنا دل ما حجري مراكبته ولو قلت السفر جري لو كان السفر جري بلد يدا هريره هذا بيهذو انتي قرين الى دبع ذا ودن بيسه اي يابس قلالان نغطي ilaa heer bartay ku tiilay ay ka dhalatay oo laga dhisay magaalada la yiraahdo Saawa oo ilaa maanta jirta sidoo Azarqani u yiri al-Imam al-Busiri wuxuu gurida Saawa ka yiri وعيون للفرس غارت فهل كان لنارهم بها إطفاء iyo ilaha biyuhu ka soo burqadaan ee ay furus lahayd waa dalka Iiraan ayaa dhulka ku libray oo guray gurida badyartaana soo dhicida daaqadaha Iwaano Kisra waa qasrigiisa riyada qaaliga iyo damida holaca dabkay caabudu jireen waxay dhammaantood aayado u yihiin inay diintaas faasidka ah ee haysteen oo ay dabka ku caabudi jireen dhiman doonto boqortooyadooduna ay burburi doonto ayna sabab u noqon doonto diinto la imaan doono nabiga habeenkaas dhashay nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaas ayaana dhacday biyahaasu madamiyeen dabkooda ayuu Busiri leeyahay halkii farsakh waa 5 kilomitir iyo nus
iyo 4 sentimitir. naaqusida biyaha badyarada atabariya. habeenkuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam dhashay waxaa yaraaday oo hoos u dhacay oo isdhimay aanse wada gurin oo yaabis noqon biyaha badyarada la yidhaahdo tabariya ee ku taalla arliga falastiin waqooyiga magaalada barakaysan ee alqudus. waana badyarada ay afka ingiriisku lagu yidhaahdo sea of Galilee. badyaradaasi weli ilaa maanta waa jirtaa, yaabisideeduna ayana dhibic biyo ahi ku harayn. waxay calaamad u tahay markuu soo baxayo almasiixu addajaalu lacnatullaahi calayh. naaqusida biyaheedu waxay calaamad u ahayd inay dadka arligaas degani la kulmi doonaan dagaal iyo arrin weyn. waagaas waxay falastiin ka tirsaneyd boqortooyada rooma. markuu islaamku yimidna waa laga faramarorsaday oo waxay noqdeen dad muslin ah iyo dowladda oo islaamka ka tirsan. ma haddana ilaahay ayaa iska leh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.